Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh daawadayaasha qiimaha badan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha maanta waxaynu soo qaadan doonaa warbixin gaar ah oo ku saabsan sida Super Computer u saadaaliyay horyaalka Premier League sanadka soo socda ee 2026-27 kooxda qaadi doonta horyaalka iyo sida uu u saadaaliyay afarta sare ee Champions League ayaa ku dhameysan doona iyo sidoo kale saddexda kooxood ee u laaban doonta heerka labaad ayaynu soo qaadan doonaa. Haddii aad ku cusub tahay noogu soo biir hadaad hore noola joogtay laakiin shir noo dheh waad mahadsan tahay. Super Computer ayaa sameeyay saadaasha xilli ciyaareedka cusub ee Premier League sanadka 2026-27 waxaana lagu saleeyay waxyaabo ay ka mid yihiin waxqabadka kooxihii sanadkii hore, ciyaartoyda cusub ee kooxaha ay soo iibsadeen, iyo isbedelada tababarayaasha ka dhacay. Su'aasha ugu weyn ayaa Arsenal ma difaacan doontaa horyaalka Premier League mar kale? Manchester City iyo Liverpool sidee ay noqon doonaan? Chelsea oo tababare cusub loo dhiibay Xavi Alonso maxay sameyn doontaa? Kooxaha hadda soo dalaacay ee saddexda ah ma badbaadi doonaan mise Championship-ka ayay u laaban doonaan? Super Computer ayaa u saadaaliyay in Arsenal ay ku guuleysan doonto Premier League xilli ciyaareedka 2026-27 haddii saadaashan rumowdo. Arsenal waxay noqon doontaa kooxda afraad ee taariikhda Premier League ku guuleysata horyaalka laba xilli ciyaareed oo isku xigta. Kooxaha hore sidaas u sameeyay waxaa ka mid ahaa Manchester United, Manchester City, Chelsea. Arsenal waxaa loo saadaaliyay inay hesho 85 dhibcood, taasoo aad ugu dhow 85 dhibcood ee ay hore ugu qaaday horyaalka Premier League. Waxaa kaloo loo saadaaliyay in Arsenal ay Manchester City kaga hormari doonto ku dhawaad 4 dhibcood. Manchester City ayaa loo saadaaliyay inay ku dhameysto kaalinta labaad. City waxay bilaabaysaa xilli cusub kadib markii uu Pep Guardiola ka tegay kooxda. Super Computer wuxuu filayaa in City Arsenal ugu dhawaan doonto marka loo eego xilli ciyaareedkii hore. Xilli ciyaareedkii hore City waxay Arsenal ka dambeysay 7 dhibcood, laakiin saadaasha cusub waxay muujinaysaa in farqiga uu yaraan doono. Manchester City sidoo kale waxay xagaagan la soo saxiixatay Elliot Anderson kaasoo ay kasoo bixisay rikoor dhan 116 milyan. Liverpool ayaa loo saadaaliyay inay ku dhameysan doonto kaalinta saddexaad. Taasi waxay noqonaysaa horumar weyn sababtoo ah Liverpool waxay ciyaareedkii hore ku dhameysatay kaalinta shanaad. Liverpool waxaa hadda tababare u ah Andoni Iraola kaasoo kooxda kala wareegay Arne Slot. Super Computer wuxuu Liverpool u saadaaliyay 76 dhibcood. Taasi waxay ka dhigan tahay in Liverpool ay 2 boos kor ugu kici doonto marka loo eego xilli ciyaareedkii hore. Manchester United ayaa loo saadaaliyay inay ku dhameysato kaalinta afraad. Taasi waxay ka dhigan tahay inay hoos ugu dhici doonto 1 boos marka loo eego xilli ciyaareedkii hore. United ayaa xilli ciyaareedkii hore si xooggan u dhameystay horyaalka iyadoo kooxda uu hogaaminayay Michael Carrick. Inkastoo United loo saadaaliyay kaalinta afraad, fursadda ay ku guuleysan karto horyaalka Premier League waxaa lagu qiyaasay 7.3%. Chelsea ayaa loo saadaaliyay inay ku dhameysato kaalinta shanaad. Tani waxay noqon lahayd horumar weyn maadaama Chelsea la filayay inay 5 boos kor ugu kacdo halka xilli ciyaareedkii hore ku dhameysatay. Chelsea waxaa hadda hogaamiyay tababaraha cusub ee lagu magacaabo Xavi Alonso. Sidoo kale kooxda ayaa xagaagan sameysay saxiixyo waaweyn. Waxaa ka mid ah Morgan Rogers kaasoo Chelsea ay kasoo bixisay lacag dhan 117 milyan. Chelsea waxaa loo saadaaliyay fursad 3.9% oo ay ku qaadi karto horyaalka. Tottenham ayaa loo saadaaliyay inay ku dhameysan doonto kaalinta lixaad. Tani waxay noqon kartaa horumar aad u weyn sababtoo ah Spurs waxaa la filayay in 11 boos kor ugu kacdo xilli ciyaareedkii hore. Kooxda ayaa xagaagan sameysay dhaqdhaqaaqyo badan oo suuqa kala iibsiga ah iyadoo soo iibsatay ciyaartoy cusub. Aston Villa ayaa loo saadaaliyay inay ku dhameysato kaalinta toddobaad. Taasi waxay ka dhigan tahay inay ka bixi doonto boosaska Champions League. Villa ayaa 2 ka mid ah 3 xilli ciyaareed ee u dambeeyay ku dhameystay afarta sare, laakiin Super Computer ma filayo in sanadkan sidaas dhici doonto. Fursadda Aston Villa ay ku dhameysan karto afarta sare waxaa lagu qiyaasaa kaliya 3.9%. 10 kooxood ee ugu sarreeya sida saadaashu tahay waxay noqonayaan Arsenal oo mar kale u saadaaliyay inay ku guuleysan doonto Premier League, Manchester City oo u saadaaliyay kaalinta labaad, Liverpool saddexaad, Manchester United afraad, Chelsea shanaad, Tottenham lixaad, Aston Villa toddobaad, Bournemouth sideedaad, Brighton sagaalaad, Brentford tobanaad. Sidaas darteed Arsenal, City, Liverpool iyo United ayaa loo arkaa kooxaha ugu waaweyn ee afarta sare halka Chelsea iyo Tottenham ay iyaguna fursad leeyihiin. Dhanka hoose ee horyaalka, Super Computer wuxuu saadaaliyay xaalad aad u adag saddexda kooxood ee cusub ee Premier League u soo dallacay. Kooxaha Coventry, Ipswich iyo Hull ayaa loo saadaaliyay inay si toos ah ugu dhici doonaan Championship-ka xilli ciyaareedka. Coventry oo tababare u yahay Frank Lampard ayaa loo saadaaliyay inay sameyso dadaalka ugu xooggan ee badbaadada marka loo eego saddexda kooxood ee soo dallacay. Si kastaba ha ahaatee, waxaa weli loo saadaaliyay inay ku dhowdahay inay hoos ugu dhacdo.
Ipswich ayaa sidoo kale waxaa loo saadaaliyay inay dib ugu laaban doonto Championship-ka. Fursadda Ipswich ee ku laabashada Championship-ka waxaa lagu qiyaasay 47.5%. Hull ayaa ah kooxda ugu khatarta badan marka loo eego saadaasha. Hull waxaa loo saadaaliyay inay fursad aad u weyn oo ah 81.6% inay u dhacdo Championship-ka. Hull waxaa Premier League ka timid iyadoo play-off-ka kusoo dallacday, inkastoo xilli ciyaareedkii hore Championship-ka ku dhamaystay kaalinta 6aad. Nottingham Forest ayaa iyaduna ku jirta khatar. Forest waxay xilli ciyaareedkii hore ku dhamaystay kaalinta 16aad, waxaana hadda tababare u ah Olivier Glasner, kaasoo horey uga soo shaqeeyay Crystal Palace. Si kastaba ha ahaatee, Supercomputer-ku wuxuu Forest u saadaaliyay inay ku dhammaysan doonto kaalinta 17aad. Fursadda Forest ay ugu dhici karto Championship-ka waxaa lagu qiyaasay 43.6%. Newcastle ayaa sidoo kale loo saadaaliyay xilli ciyaareed aad u adag. Kooxda ayaa xilli ciyaareedkii hore ku dhamaystay kaalinta 12aad, taasoo ahayd natiijo aad u xun. Xagaaga Newcastle waxaa ka dhacay isbeddello waaweyn. Waxay iibisay ciyaartoy muhiim ah sida Bruno Guimaraes, Sandro Tonali iyo Anthony Gordon. Sidoo kalena Eddie Howe ayaa kooxda ka tegay, waxaana beddelay Matthias Giseli. Supercomputer-ku wuxuu Newcastle u saadaaliyay inay ku dhamaysato kaalinta 13aad. Sunderland ayaa xilli ciyaareedkii hore sameysay waxqabad taariikhi ah iyadoo ku dhamaystay kaalinta 7aad, laakiin Supercomputer-ku ma filayo in mar kale taasi dhici doonto. Sunderland waxaa loo saadaaliyay kaalinta 15aad. Fursadda ay ugu dhici karto Championship-ka waxaa lagu qiyaasay 22.4%. Everton ayaa ka mid ah kooxaha la filayay inay horumar sameeyaan. Waxaa loo saadaaliyay inay ka kici doonto kaalinta 13aad una gudbi doonto kaalinta 11aad. Everton waa kooxda kaliya ee ku jirta qaybta hoose ee saadaasha oo loo saadaaliyay inay ka sareyso booska ay xilli ciyaareedkii hore ku dhamaysatay. Fulham waxaa loo saadaaliyay kaalinta 12aad. Leeds waxaa loo saadaaliyay kaalinta 14aad. Leeds ayaa waxaa lagu qiyaasaa fursad 9% oo ay ugu dhici karto Championship-ka. Marka loo eego boqolleyda, Arsenal ayaa ah kooxda ugu cadcad ee horyaalka. Arsenal waxaa loo saadaaliyay 50.6% fursad ay ku qaadi karto Premier League. Tani waxay ku dhawaad 2 jeer ka badan tahay fursadda koox kasta ee kale. Manchester City waxaa loo saadaaliyay 27.5% fursad ay ku qaadi karto horyaalka. Liverpool waxaa la siiyay 10.2% oo ay ku qaadi karto horyaalka. Manchester United 7.3% oo ay ku qaadi karto horyaalka. Chelsea 3.9% oo ay ku qaadi karto horyaalka. Halka Tottenham fursad aad u yar la siiyay oo ah 0.4% oo ay ku qaadi karto horyaalka. Fursadda top 4-ka Aston Villa waxaa 2 jeer 3 xilli ciyaareed ugu dambeysay ku dhamaystay 4 sare, laakiin sanadkan Supercomputer-ku wuxuu u arkaa in Aston Villa ay ku adkaan doonto inay mar kale Champions League gaarto. Waxaa Villa la siiyay 3.6% fursad ay ku dhammaysan karto 4 sare. Arsenal, Manchester United, Manchester City, Liverpool ayaa loo arkaa kuwa ugu xooggan ee 4 sare. Chelsea iyo Tottenham ayaa ah kooxaha kale loo arko inay tartanka kusoo biiri karaan. Fursadaha relegation-ka ama Championship-ka, kooxda ugu khatarta badan waa Hull oo leh 87.6% fursad ay ugu dhici karto heerka labaad. Kadib waxaa jira Ipswich oo ah 47.5% fursad heerka labaad ah. Nottingham Forest 43.1% fursadda heerka labaad ay ugu dhici karto. Coventry 43.1% oo heerka labaad ay ugu dhici karto. Crystal Palace 32.8% oo heerka labaad ku dhici karto. Sunderland 22% ay heerka labaad u dhici kartaa. Leeds 9% ay heerka labaad u dhici kartaa. Xilli ciyaareedka cusub ee Premier League wuxuu bilaabanayaa maalin Jimce ah oo ah 21 Agoosto 2026. Kulanka furitaanka wuxuu noqonayaa Arsenal oo ku guuleystay horyaalka iyo Coventry oo ka timid horyaalka heerka labaad ee Ingiriiska.